iyo qaabka loo design garaynayo iyo qaabka loo talaayo iyo isku xiritaanka si kastaba ahaato. Markuu sanadka ahay 1920 markuu sanadka ahay labadan wiil walaalaha ayaa waxay in isku tageen gurigooda garaashka meesha kamid ahaan ay waxay ku aas-aaseen company waxay ugu magacdeen Dassler Brothers Sports Shoe Company. Company-gan oo aad u yar ayay waxay ku magacaabinayeen magaaladan yar ee markaas ay degnaayeen oo ayakuna waxay ka sameeyeen ku aasaaseen ugu horreyntii gurigooda maadaama ay company-ga oo productionkiisa una weyneyn ayna kaba saar badan ayna sameyn karin una baahnayn markaas oo suuq waxaaba ka jira qiyaas ahaan 200 ilaa 300 kaba wax soo saar camal ahaan ama kabaha farsameeya. So ayaka kuwaas kamid ahaayeen maadaama company kala jireen laakiin ayaka waxay ka aas-aaseen gurigooda ama garaashka gurigooda ay businesska yar ay ka sameeyeen ayagoo ugu magac dareen Dassler Brothers Sports Shoe. labada wiil labada wiil ayaa mid wuxuu ku fiicnaa xagga design-ka ahaan. The elder brother ayaa wuxuu ku fiicnaa inuu wax design gareeyo xagga kan kale oo Rudolph oo ahaan aas-aasaha Puma company-da loo yaqaano inuu ahay nin xagga saleska ahaan in suuqgeynta aad ugu fiicnaa sida la sheego. markii sanadka markuu ahaay 1926 ayaa waxaa dhacday in company-gii oo 6 sano gudahood uu noqdo company wax soo saarkiisa aad ugu fiicnaado ay kaba badan soo saareen maadaama kabii ay dadkii ay aad uu businesska u korayo ama kaba badan ay soo sameynayaan dalabkiina uu kordhayo waxaa qasab ku noqotay in ay production inay sameeyaan ay meel kale ay sameeyaan warehouse production oo ka baxsan. So 1926 ayay waxay sameeyeen warehouse production kaasoo ka baxsan gurigooda ay marka hore business ku bilaabeen. 1928 labada wiil waxay isku dayeen inay sponsor u noqdaan Olympic markaas lagu qabanayo Amsterdam kaas oo dad badan oo u dhashay dadka Germany oo ka qayb gala ahay dadkaas sportskaas inay u offer gareeyaan ay ku ordaan kabahooda ay u noqoto in suuqweyn ama dadka ay arkaan. So waxaan dhihi karnaa markan waa markii ugu horeysay ay dadka tuseen kabahooda quality-ga leeyihiin maadaama ay ku ordayeen inta ugu badan dadkii markaas ka imaanayay Germany Amsterdam u imaaday Olympiga xilligaas socday markuu sanadka ahay 1928. Dassler also xilligaas kadib wuxuu isku dayay in markaan ay target gareystaan wadamada kale dadka u ordo sida kale Jesse Owens oo ahaa nin ooryahan ahaan oo kaasoo ku guuleystay bilada dahabka ahaan sanadka samarka markuu Olympiga uu ahay 1936 ayuu ku guuleystay Olympigii markaas kaasi oo u noqotay in uu ku qanciyo in uu isticmaalo kabaha Dassler ay soo sameeyaan labadan wiil ee walaalahan ay uu ku ordo oo asna u noqdo nin kabaha xayeysiin u sameeyo. ugu dambeyntii si kastaba ha ahaatee wuxuu ku qanciyeen in Jesse Owens uu isticmaalo kabahooda uuna ku guuleysto 3 bilood iyo wax ka badan oo dahab ahaan. sanadka markuu ahaa 1930 ayay labadan wiil waxay ku darsoomeen ama ay dhinac ka raaceen dadkii u badnaay oo xilligaas naasiyiinta maadaama dawladda Jarmal ay xilligaas ka tirinaysay ay dawlad awood badan oo kaligeed talisa ahaan waxay noqdeen dadkaas dawladda taageero oo gacan u fidiyo. dawladdaas ayaa waxa ugu horreyntii waxay siisay budget ama capital ay ku dhisayaan ciidanka kabahooda ugu sameynayaan. So halkaas waxay noqotay in Dassler Brothers Shoe inay magaceeda kor u soo kacday maadaama sponsor ay ka heshay ciidankii dhammaay oo inay kabaha u sameeyaan. The brother ugu dambeyntii labadii wiil walaalaha ayaa waxay markii sanadkii ahayd 1947 waxay
noqdeen kuwo xiriirkoodii kala qaata oo businesskoodina uu soco waayo. Siyaabo badan dartees waxaa lagu qiyaasaa dadka qaarkood ay dhahaan inay jireen xiriir ka dhexaysay gabdho ay isla wada shukaansanayeen iyo inay dhahaan family dhibaato ka jirto oo waa businesska inta ugu badan familiga ahaan waxaa dhaca in laysku qabsado ay laismari waayo maadaama marka ugu horeysaba sharciyo degan aan la kala qoran oo marka hore family ahaan magaca family lagu sameeyo. So si kastaba ha ahaato sanadka markuu ahaa 1947 ayaa waxaa dhacday labadan wiil ee walaalaha ee aas-aasay Tesla shoe company in ay ku heshii waayaan businesskooda. So Rudolph ayaa wuxuu samaystay company firm cusub companygaas ugu magacda Ruder laakiin ereyga ayaa wuxuu u noqon waayay erey u cuntama maadaama uu targetkiis uu yahay sportska. So waqti kadib ayaa wuxuu sameeyey oo rebranding uu ku sameeyey magaca branding ayuu bedelay wuxuuna u bedelay ereyga maanta loo yaqaano ee Puma. So markay nimankan ay split kala sameeyeen labadan weli walaalahan waxay noqotay labada company ee u kala weynaay ee ka jiray xilligaas Germany ee ka gees especially magaalada yar ay ku soo koreen oo markaasi aaska u ahay. Dhibaatada ayaa waxay saameysay dadkii iyo xataa waxay saameysay dadka footballka sportska maadaama targetkooda uu yahay dadka almiitada sameeya ama sportska sameeya. Sidoo kale tiimamkii ugu weynaay ee markaas ka jiray magaaladooda ayaa waxay noqdeen laba tiim oo ku kala safto oo qolaba ay la saftaan Adidas qolana ay la saftaan Puma. Tiimka loo yaqaano AZV ayaa wuxuu support gareeyay Adidas halka tiimka kale oo 1VC asna uu support u noqday Puma. So marka waxaa qalaasihii labada dhinac ayaa waxay kala noqdeen xataa tiimamka inay qolan support u noqdaan xataa qola support xataa waxa la soo wariyaa dadka oo maadaama magaalada ay degnaayeen labadan wiil ay u dhaxmaro togaas dadka dhinaca ka degan haddii uu u shaqeeyo Puma lama hadli karo lama sheekaysan karo dadka kale ee dhinacan ka degan ee Adidas u shaqeeyo. So dadka nacaybka halkaas ayaa gaartay muddaas ilaa waxay gaartay ilaa muddo 60 sano ku dhawaad inay dadkaas ay kala noqdaan laba qolo oo kala taageersan labada company. Ugu dambeyntii maanta la joogo ayaa labada company waxay yihiin laba company oo heer suuqa mataqaanaa si fiican ka gaaray oo suuqa magacoodana ay capitalkooda aad u weyn yahay. Xagga companyga maanta Puma sanadka markuu ahaa 2018kii uu sameeyay 4.64 billion oo revenue sameeyay ay ku jirto dhammaan wax kastaba costiga wax kasta ku jiro. Xagga operationka income-ka uu ka soo helo xagga operationka ay ahayd 337 million sanadka markuu ahaa. Ugu dambeyntii faa'iidada ay sameeyeen sanadka 2018 ayay waxay sameeyeen 187 halka marka uu la barbar dhigtid companyga kale ee Adidas uu yahay companyga sameeyay sanadka 2018 2.915 billion oo sameeyay xagga operationka oo faa'iido uu ka sameeyay 2.36 billion net income-ka uu sameeyay 1.7 billion. Isku barbardhig ayaa waxaa ku tusaysaa in companyga Adidas uu company aad u weyn yahay xagga suuqa kabaha uu yahay companyga labaad